foolxumadii maanta ka dhacday sool ka dhacday maanta inuu yiraahdo waan ku farxsanahayna foolxumo ka weyn maanta ma jirto maxamedow waxaad madaxweynaha ugu carisantahay waxa u sameynaysaa aad leedahay maanta u leedahay corruption ban ayaan diidanaya musuqmaasuq la dagaalamaya commissionkii AIDS waxa laga soo reeyay corruption ban waa ayaan daro waan ka xunnahay in maanta nin xasaanada qaranka waxan baarsan ku soo daba dhuunto Soomaaliland maanta inuu caayo maanta laas aanad xoreyn uma baahna waxa u baahan adiga xoreyn u baahan maanta oo nin Kenyaati san weyn hoos fadhiya maanta adiga ajandayaashiisa ku dhaqma adiga xoreyn uga baahan inaan ku soo xoreyn adiga farxo xogayaha abaabulka ee xisbiga mucaaradka ee UCD Maxamed Qardaawi ayaa eedeymo culus u jeediyay xildhibaan Maxamed Abiib oo ku eedeeyay inuu yahay qaynal wadan isla markaas sidoo kalena waxa uu eedeymo sidoo kale u jeediyay Faarax Macalinka ku sugan dalka Kenya Maxamed Qardaawi oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri arinta koowan doonayeen ka hadla waxa weeyaan xildhibaankeenii Maxamed Abiib oo muddo intii ugu dambeysay hadallo deelqaaf ah Soomaaliland jiritaankeedana ka soo horjeeday liddi ku ah inay ka soo yeedhiso Maxamed Abiib runtii xasaanad buu qaranku xambaarsan yahay nin xasaanad leh COVID-19 22 xildhibaan kaligiiba ka muuqda COVID-19 kala ma hayno runtii waa ayaan daro inuu COVID-19 ka xildhibaan maanta ka duwanaado isagu waan foolxumo ismuu weydiin war COVID-19 ka xildhibaan wadar iyo waxya ma waalan bal meel COVID-19 ka xildhibaan ku hadli waayeen maanta inuu isagu hadal yiraahdo waliba hadal deeqaaf ah maanta aad baan uga xumahay marka waadka arinta labaad ee la yaab kale waxa weeyaan in madaxweynaha uu leeyahay jabkii madaxweynaha ayaan ku farxay maanta wuxuu leeyahay maxamed maanta wuxuu leeyahay jirtaankii Soomaaliland baan ka xumahay waan ku farxsan jabka Soomaaliland soo gaaray waxaan ognahay madaxweynuhu inuu yahay haybadii qaranka haddii la aflagaadeeyo iyo waxa weeyaan qarankii Soomaaliland la aflagaadeeyo runtii waa la dhaleeli karaya madaxweynaha wixii doono lagu oran karaya laakiin in madaxweynaha la aflagaadeeyo anagoo xisbiyo mucaaradana guul karin maanta waa ayaan daro waan ka xunnahay in maanta nin xasaanada qaranka waxan baarsan ku soo daba dhuunto Soomaaliland maanta inuu caayo foolxumadii maanta ka dhacday sool ka dhacday maanta inuu yiraahdo waan ku farxsanahayna foolxumo ka weyn maanta ma jirto marka waxaan leeyahay Maxamed waxaan leeyahay hadalka ku soo gaabinaya ku dheeraamaaye Maxamedow waxaad madaxweynaha ugu carisantahay waxa u sameynaysaa aad leedahay maanta u leedahay corruption ban ayaan diidanaya musuqmaasuq la dagaalamaya commissionkii AIDS waxa laga soo reeyay corruption ban waxa xildhibaanka kale reerkiisu maanta TV ka cawday baata maanta meeshaad marayso maanta xildhibaan maraya oo adiga kula teetalo xasaanada istaamaanta ma jiro haddaad maanta Maxamedow joojin weydo aflagaadada qaranka ku hayso madaxweynaha mu jeedida Soomaaliland baad u jeedaayay waan isku ka qaban doonaa runtan ku sheeg doonaa maxaa bise intaasaan leeyahay waxa arrinta labaad doonayeen dul saar waxa weeyaan kala Faarax Macalin haddaad maqasheen Soomaaliland hadday maqleen huwantii gudaha iyo huwantii dibadda waxa weeye maxaa keligii huwantii gudaha ma rag badan baa ayaa maanta ku lamaan oo dhoosha ku qosday Soomaaliland xaaladda maanta ku sugan tahay keligiina maaha wuxuu urkaagu ka xado wuxuu afka ka xado urku ka xadaabay maanta waxa cad in urkiisu maanta ka hadlay waxa weeye jabitaanka Soomaaliland iyo Soomaaliland in dunto maanta maaluhu ka jecel inay jirin baa wallahi huwanta dibadda Faarax Macalin oo iyo isaga groupka G21 kala yiraahdo ee Nairobi fadhiya Faarax Macalin wuxuu caadeystay in ayda Soomaaliland iyo waxa weeyaan jalfiyada ka soo maleeyay Nairobi waxaan xasuusinayaa Faarax haddaad leedahay Soomaaliland maanta horumarka ay gaadhay baan ka xumahay leedahay Faaraxow oo aflagaadada iyo waxa weeyaan reeraha Soomaaliland u kala abtirinayso waxaan ku xasuusinayaa beeshan iyo dooraad caayso maanta maryaha iyaga ku xidhay shalay adigoo qaawan xitaa macal xoolo dhaqato ma ahayn cawaan baad ahayd adigoo qaawan oo calaayar cawrada saara ay Faarax Macalin waxaan ku xidhnay dresska maanta xidhanta suulka maada qomariyas la xidho Faarax waxaan leeyahay Faaraxow inaad maanta aad tiraahdo aad ku soo jeesto Soomaaliland iyo iidoor aad leedahay iidoor aflagaada iidoor ku soo celcelinayso kelmadda iidoor horta macnaheedu soo dhuux baan ku leeyahay dib u sugu noqo
adigoo qaawan baan maray ku xidhnay adigoo qaawan baan ku xidhnay ayaan wax ku barnay inaad maanta soo dib aad nagu soo celiso annaga waxa weeyaan waa casriga waxa weeye casri jahiligan maanta aan joogno ayaa nagu kaasimay haddaad is leedahay waxa loo noqonayaa qarniyadii 13aad Faarax Macalinlow aad baan uga xumahay maanta lagu noqon maayo qarnigaas waxa weeye waxa la joogaa qarnigii 12aad 2013 wala jooga Faarax waxa la leeyahay aan ku soo gabagabeynay Faarax waxa la leeyahay Somaliland maanta aad leedahay laascaanood way ka go'aysaa kama go'ayso maanta laascaanood xoreyn uma baahna waxa u baahan adiga xoreyn u baahan maanta oo nin Kenyaati san weyn hoos fadhiya maanta adiga ajandayaashiisa ku dhaqma adiga xoreyn nooga baahan inaan ku soo xoreyn adiga Faaraxo marka maanta xil aad hadasho xil aad Soomaaliya Somaliland ka hadasho xil aad Xasan Sheekh tigsatay xil aad Muuse Bixi maanta tigsato maanta ma joogtidee Ilaahay baana ka baday tolan naga ka dhigay adigaan ku xoreynaa idamka Ilaahay markay hawshan dhamaato waxaan soo jeesan lahayn waxaan soo jeesan doonaa sanadii ku xoreyn lahayn xildhibaan maxamed inta badan wuxuu ku eedeeyay dadka kale inay qabyaalad u kala abtiriyaan isaguna inta badan wuxuu ka hadlaa qabyaalad arintaadu sidoo aragtay أنا وحن قبا محل وحن قبانو عدو قلنا عبي هاي وحوي ما أنتني سقطة نعيب ساقين كشران أنا قبا صوبته نكاسي سومالي لا ترتين كذا نضن كماله هذا الكيس شلي موسى ما وايا ما أنت نيك قرن سومالي لان صوت دورنا هون بعده ما أنت ما دايما يهين مالو هذا موسى كفر حسن شب كيس كفر حسن موسى عنده واحد الحياة وحسبي معارضك ومقول كريان ما أنت فايز اللي عريان تيمادا ومقول كريان ما ولا كريان وحنا كفر حسن شبك موسى سعودي هي حسبي معارض كما سواء أنا ما أنت عندهم موسى صور شيتنا حسانات إنه كل هذا يمرك لقطه يا وبني ما أنت إنه موسى دليله موسى إنه كل شيء كيس كفر حسن يسك waxay ka dhigan tahay that means waxay ka dhigan tahay qarnimada Soomaaliland gibigeeda baan inuu ku soo jeedo waa dadkan huwa intay laabtan waxa weeye halkan kala dhool cadeynaya jabka gar ka shaqeynaya isaga kaligiina baa rag badan baa jiro golaha kale dhex fadhiya waana la soo waqtigeedana way soo bixi doonaan dadkaas sida kuwa kala cabsaaq kale ugu soo baxay godka ugu soo baxay niman kale ayaguna jiro ka soo bixi doonaan nimanka sool maanta Shaafici oo leedahay sanaag bay ku haminayaan waxaan xasuusinayaa koox cad ciidanka steed bilood markuu fadhiyay markay soo baxaan weer soo qaadan dib u yaacay wali ciidanka cidna ma siitay horaan loo ma siitay maanta lama siitay wali waxa la sugayaa laguma degdegayay istaraatiijiyada ciidanka loo dhigi lahaa arintaas markay timaado Soolens waxa ku soo noqon doontaa gacmaheena ay ku soo noqon doontaa Soomaaliland xuduudkeeda way gaari doontaa Mukhtaar Nuux Ibraahim Bulsha TV Hargeysa